akhriskii aqoonta aanu qaadano edeb lahaano casharkeena ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno edeb lahaano casharkeena ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waa salaamantiin saaxiibayaal dhammaantiina meel kastoo aad joogtaan, mar kale ku soo dhowaada casharkeennii verbs and tenses oo ka mid ah casharadii grammarka ahaa ee aan soo wadnay dhowaanahanba. waxay noogu war dambaysay annagoo qaadanay possessive determinants oo weliba aan ka bixinay exercise. cawada waxaan qaadan doonnaa verbs and tenses. Let's do it. waaya verbs and tenses aan qaadanno markaan. waxaan dhahnay verbs waxaa laga wadaa waa ficiladii, tensesna waa teenisyadii ficilka iyo verbka ay iskula shaqaynayeen. most verbs ficiladii intooda badan are action words, waa falsameeyaa. They tell you waxay kuu sheegaan what people, animals or things are doing, waxa dadka xayawaanada ama sheeyaashu ay samaynayaan. For example, qofkan wuxuu samaynayaa knock ayuu samaynayaa, albaab ayuu gargaraacayaa. Burst, buufintan way qarxaysaa. Climb, dabcan eegan yar daanyarkan yar waxa uu fuulayaa geedka. Sidoo kale dig, eegani dhulka ayuu qodayaa. Read, gabadhani waxay ka dhigan tahay inay wax akhrinayso. sidoo kale drop, waxay ka dhigan tahay mirtan inay geedka ka soo dhacayso iyo waxyaabahaasi oo kale. halkaay ku qoran tahay word file. word file waxaa laga wadaa liiska ereyada ama feelka ereyada ama meesha ereyadu ay ku jiraan. saasoo kale act waa jilid waaye, bake dubid waaye, pend qalloocin, buy soo iibsasho, close xirid, cook karin, cross maaragtay ka gudbid oo kale waaye, fall dhicid, fly duulid, go tegid, grow grow waxaa waaye abuuridna way noqotaa, koridna way noqotaa. hop, ereygan hop waxaa waaye boodid waaye, sida raha oo kale markuu boodboodayo hop aa lahaa. jump waa boodidda qofka uu boodayo. move maaragtay waa maaragtay dhaqaaqid waxyaabahaasi. bull jiidid, run in la ordo ama maaragtay cararid. shout qaylin, sing heesid, sit fadhiisasho, slide taraaraxid, stand istaagid, start bilaabid, swim dabaalasho, walk maaragtay socosho iyo maaragtay in la socdo. next page-ka aan gudbayna waxaa ku qoran markaasi next page-ka the simple present tense ayaa ku qoran. waa naqaana simple present tense ama dad badan horey ay soo arkeen. the simple present tense expresses wuxuu tilmaama ama qeexa a general truth, run maaragtay good, waxyaabo good oo run ah, or a customary action ama maaragtay fal maaragtay caadi la caadiystay ama fal maalin kasta dhacayo. sidoo kale wuxuu leeyahay tusaale wuxuu soo qaadanaya jumlado ayuu soo qaadanaya. Uncle Joe, Aunty Joe wears wuxuu xirtaa glasses oo kale ayuu xirtaa. The sun rises in the east, qoraxda waxay ka soo baxdaa bari ayay ka soo baxdaa. sidoo kale ducks, boolada love water, biyaha ayay jecel yihiin. The children go to school by bus, caruurta waxay iskuulka ku aadaan bas ayay iskool ku aadaan. Mary enjoys singing, Mary waxay aad ugu raaxaystaa heesaha ama in la heeso. Peter sometimes lends me his bike, qofka la yidhaahdo Peter mararka qaarkood wuxuu ideemiyaa bikegiisa ama baaskiilkiisa. cows eat grass, lo-du waxay cuntaa maaragtay cooska. monkeys like bananas, daanyeerkana waxa uu jecel yahay ama daanyeerada waxay jecel yihiin markaasi mooska ayay jecel yihiin. Tom collects stamps,
Tom wuxuu aruuriyaa astaambooyinka ayuu aruuriyaa. And the earth goes around the sun. And dhulka wuxuu ku dul wareegaa qoraxda. Sidoo kale, it often snows in winter. Badana waxaa soo da'a baraf ayaa soo da'a maaragtay. Winterka, we always wash our hands before meals. Anaga markasta gacmahena waan dhaqnaa cuntooyinka ka hor. We eat 3 meals a day. Maaragtay 3 mar ayaan maalintii wax cunaa. Father takes the dog for a walk every morning. Aabe waxaa way eega wuu soo lugaysiyaa subax kasto. Cajiib waayahay. Qaybta xigta waxaa way use the simple present tense to talk about things. U isticmaal simple present tense inaa uga hadasho waxyaabo that are planned, kuwaas oo la qorsheeyay for the future-ka ama maaragtay mustaqbalka la qorsheeyay. Tusaale wuxuu leeyahay Millennia starts waxay bilowdaa schoolka tomorrow, maalinta berito ayay bilowdaa. Next week toddobaadka soo socdo I go to summer camp, waxaan aadayaa summer camp. Waxaa laga wadaa yacni xagaaga marka kuleelka uu dhaco ama kuleelka la gaaro. Dabcan meelaha waxaa jirta oo ka baxsan guryaha oo teendooyin iyo waxyaabo la qaato lagu soo maaragtay qabow, lagu soo nasto qabow iyo wax laga raadiyo. Marka kaamkan waa kaam caadi ah ama meel yaro la dego maalmahaas. The trainka Dibatis wuxuu baxayaa in 5 minutes, 5 daqiiqo kadib ayuu tegi doonaa. We join, waxaan ku biiraynaa the senior Scott Troop kooxda sarsare ee indhayaasha in July, bisha July this maaragtay year sanadkani. Ergan Troop waa ciidan iyo waxyaabahaas ka hadlaya. My big brother leaves school at 4 o'clock. Walaalkay wuxuu iskoolka ka tagaa 4 saac ama 10 saac baan iraahday. The new supermarket-ka cusub opens waxa uu furmayaa ama la furayaa next Friday-ga soo socda, Jimcaha soo socota. Okay. The new grammar book-ga cusub ee grammarka comes out wuxuu soo baxayaa in September, bisha September. Granddad awoowe retires, wuxuu shaqada ka fadhiisanayaa next year, sanadka soo socdo. We fly to London ayaan u duuli doonaa next Thursday, khamiista soo socoto. The plane lands out, diyaaradda waxay degtaa 5:30 p.m. 5:00 maaragtay galabnimo 11 saac bar ayay ka dhigan tahay. We move to our new house, gurigeena cusub ayaan u guuraynaa in a month, muddo bil ah. My big sister, walaasheeda iga weyn, begins her summer job, shaqadeeda samarka waxay bilaabaysaa next week, toddobaadka soo socdo. Halka waxaa ku qoran underline the verbs in the following sentences. Hoos ka xariiq maaragtay ficilada ku jiro 10 jumladood ee soo socoto. Tusaale, the children go to school by bus. Caruurta waxay iskuulka ku aadaan bus. Go ayaa waxay tahay markaasi verb ayay tahay. Pat sleep during the day. Patiska ama fiidmeerka waxay seexdaan maalintii. So sleep is a verb. Verbka waa sleep. These toys can belong to waxaa iska leh Kathy ayaa iska leh. Toyska waa waxyaaba caruurta ay ku ciyaaraan. So belong ayaa waxay tahay verbka ayaa ah. Every pupil arday kastahaas wuxuu leeyahay a good dictionary wanaagsan ayuu leeyahay, maqaamuus wanaagsan. So has ayaa waxay tahay markaan waxaan ku raadaay verbka waana verb to be. Polar bears, xayawaanada la yiraahdo, live waxay ku nool yihiin at the North Pole, waqooyiga ama cirifka waqooyiga adduunka ku nool yihiin. So live ayaa verb ah. Most children learn very fast. Caruurta intooda badan si dhaqso ayay wax u bartaan. Learn ayaa verb ah markaasi. Master Thomas teaches us, wuxuu noo dhigaa markaasi science ayuu noo dhigaa, sida daraaddeed teach ayaa waxay tahay verbka. The earth goes around the sun, dhulka wuxuu ku dul wareega qoraxda goes ayaa waxay tahay markaasi verbka.
we'd never cross the street without looking. Waddada kama gudubno ama ma goyno annagoo aanan eegin dhinacyadaas ka fiirin. So cross ayaa verb ah. Many stores close on Sunday. Baqaaro badan ama dukaamo badan waxay xirmi doonaan Sundayga ama maalinta Axadda. Close ayaana verb ah. akhriskii aqoonta aanu qaadano edeb lahaano casharkeena ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno edeb lahaano casharkeena ka adkaano aqbalno macallimiinta waalidkana adeeno